وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة أما كلن كان waxaan si kooban doonayaa insha Allah taala in ugu tilmaamo zakatul fitriga ama dagarasoonka ahkaamtiisa nagoon ku dheeraanayna si kooban u tilmaami doona. Ilaahay baa mahad kale tabaaraka wa tacaala marka hore oo ina soo gaarsiiyay bishii Ramadaan ee barakaysaneed aakhirkeeda maanta oo khamiisa waxaan soomanahay 28 berri inay ku dhamaataa dhici karaysa 29 oo sabtida ay noqoto ciid. waxaa kaloo dhici karaysa inaynu soddonka buuxino oo ay ciid noqoto markaasi maalinka axadda ah. mid ay noqotoba waqtigan waxaa laynoo jideeyey laba camal ayaa soo kordhay bisha dhamaadkeeda. camalka hore ama shaqada hore waxa weeyaan zakatul fitriga ama dagarasoonka iyo bixintiisa. ka labaadna waxa weeye salaada ciida oo waliba hadda duruuftan istinaa'iga ku soo hagaagay. mid hore oo zakatul fitriga ah ama dagarasoonka saan ogsoonahay waa shay waa zako oo jirka bini aadamka ka go'da. nabiguna sallallahu alayhi wa alihi wasallam uu farad yeelo waajib ka dhigay sida xadiidka Abdullah ibn Umar saxiixaynka ku yimid oo nabigu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay nabigu wuxuu farad yeelay zakatul fitriga ama waajib yeelay saac oo timir ah ama saac cunto ah ama saac shaciira oo nabigu ku waajibiyay sallallahu alayhi wasallam ruux kastoo muslim ah hadduu waryar yahay, hadduu weyn yahay, hadduu adoon yahay, hadduu xor yahay, hadduu lab yahay, hadduu dhadig yahay, nabigu ku waajibiyay sallallahu alayhi wasallam. marka xukunkeeda waa waajib waana farad laazim ah oo ruuxa muslimka looga baahan yahay. waxaa sharti ah inuu ruuxaasi kari karo, awoodi karo inuu bixiyo raashinkaas. waxayna culimadu ku qeexaan ama ku dabdiyaan in uu ruuxu heli karo habeenka ciidda iyo maalinkeeda wax ka siyaadsan inuu heli karo haysto. waxaa ka siyaadsan hadday qadarkii zakatul fitriga gaadhayaan uu bixin, hadday ka yar yihiinna intuu heli karo unbuu kolba bixin. intaa unbaa laazim ku noqonaysa isagu inuu iska bixiyo way ruuxu. dadka uu mas-uulka ka yahay ee nafaqadooda iyo masruufkooda isaga ay waajibka ku tahayna waa inuu ka bixiyo ayaa laazim ku oo waajib ku ah. zakada waxaa loo jideeyey xikmadda ku jirta. nabiga tilmaamay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri tuhratun lis-saa'imi min al-lagwi war-rafath wa tu'matun lil-masaakiin. ruuxii soomanaa oo Ramadaan soo soomay soonkiisa qasab waxbaa galay, hadal xun hadday tahay, ficil xun hadduu yahay, dembiyo waxbaa qasay oo dhex galay. bini aadam baynu nahay. marka wixii galay soonkaagii oo ama dhaqan xumo ah ama hadal xumo ah ayay sakadani dagarasoonkan ka wadnaaye ayay ka daahirinaysaa. soonkii bay daahirinaysaa. ruuxii soomanaa waxyaalihii ka dhacay bay ka daahirinaysaa. midda labaadna waxa weeye nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam masaakiintana quud bay u tahay oo maalinka dadku wada faraxsan yihiin ayaa la doonayaa in masaakiintu ay faraxa ka qayb galaan oo baahidooda la daboolo oo gacanta loo taago oo laga saaro faqriga iyo baahida laga saaro mujtamaca wax haysta inay ka mid noqdaan. iyadana waa maqsadkii iyo ujeedada labaad ee loogu talagalay weeye. zakatul fitriga sida xadiista nabiga ku imaanaysa sallallahu alayhi wasallam waxa waajibaya la bixinayo waa cunto, waa saac ama suus cunto awey
sida xadiista ku timid nabiga waqtigiisana sallallahu alayhi wasallam saasay ahayd suuskaasi cuntada ah iyaga waagii nabiga sallallahu alayhi wasallam waqtigiisa saxaabada cuntadii ay markaa iyagu cuni jireen bay ku bixin jireen ama timir ha noqoto ama ha noqoto heeda baashila shaciirta ama ha noqdo zabiibka ama caano la fadhiisiyo aqit la yiraahdo ha noqdo wixii markaa iyaga cunto u ahaa bay ku bixin jireen halkaas culimadu waxay ka soo qaateen waxay yiraahdeen yaani ghaalibu quutil balad bay dhahaan magaalada iyo dalka markaa aad joogteed sakada ku bixinayso cuntada lagu cuno ee u badan cuntooyinka laga cuno ayaa lagu bixinayaa qadarka la bixinayana waa ka nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku sheegay saac buu ku sheegay saaca waa sidii koobo oo kale waa shay wax lagu beegi jiray waaye miisaan ma ahayn raashimada lama miisaami jirin laakiin yani markaas deegaanka isaga ka hadlaynaa yani waa beeg hal beeg waaye laakiin miisaan marka loo bedelay marka culimadu qaar 2 kiilo bad qaar 3 kiilo waxbay gaarsiinayaan adiga wax way waa 4 cantoobo oo gacanta lagu qaaday hadana lagu qaaday hadana lagu qaaday hadana lagu qaaday 4 jeer oo saas oo kale ah ayaa saac u noqonaya marka 2 kiilo bad baa hadda loo badan yahay oo la bixinaya oo cunto ah waxa aad u badan su'aasha ah sakaatul fitriga lacag ma lagu bixin karo masaakiinta bedelkii raashin la siin lahaa lacagta toos ma loo guddoonsiin karayaa waa mas'ala khilaafiye weeye madaahibta badankoodu waxay qabaan maya raashin baa la bixinayaa lacag lama bixin karo oo miskiinka lama siin karayo sakaatul fitri ma noqonaysa u badan yihiin fuqahadu waqtigii nabigana sallallahu alayhi wa alihi wasallam sidaas ay ahayd raashin baa la bixin jiray waase jiraan culimo qaba in lacag la bixin karayo oo qiimaha raashinkaas oo lacaga in la siin karayo madhabka xanafiga qaba muxuu ahay waana culimada mucaasiriinta hadda jooga qaal madhabka rajaxayana way jiraan oo leh maslaxadii miskiinka ku jirta ay la raashin in la siiyo oo qiimihiisa qiimo ka hooseeyo uu suuqa kaga iibiyo waxa dhaanta in lacagta la siiyo maslaxada markay fiiriyaan dhankaas ay ka fiirinayaan adiga mas'ala khilaafiye weeye laakiin waxa loo badan yahay in cunto la bixiyo siday fuqahadu u badan yihiin sidaas weeye qiyaasta la bixinayana waa taa aan soo sheegnay yaa la siinayaa weeye waxa la siinayaa oo iska leh masaakiinta iska leh waa kan xadiiskii hadda soo sheegnay nabiga sallallahu alayhi wasallam tu'ma lil masaakiin waa quud masaakiinta loogu talagalay weeye inuu ruuxu miskiin yahay baa muhiima hal ruux si ka badan si zakaatul fitri farabadan hal ruux la isugu geeyo kulli waa banaanta wax dhiba ma laha waxa muhiim ah inuu ruuxaasi uu yahay ruux miskiin uu yahay waxa kale to iyadana aad la isu weydiiyaa meesha ruuxa bixinaya uu joogo meel aan ahayn ma ku bixin karaa iyaduna waa jawaabtu wahaa cid kale waa u wakiilan kartaa oo meel kale to oodan joogin waa laga bixin karaa ehelkaagii carruurtaada ka maqan adigu meesha joogto waad ku bixin kartaa meesha iyagu joogaana waa lagu bixin karayaa mushkilo male khaasatan haday xaaji iyo maslaxa keento iyadana waxa way wax dhiba ma laha goorma la bixinaya waqtigeeda waqtigu wax weeyaan inta aan salaada ciida la tukanin ayaa la doonayaa in la bixiyo maalinka ciida maalin ka hor ama 2 bari ka horna waa la sii bixin karaa hadda maanta 28 baan joognaa haday bishu 30 ku dhamaanayso bari oo jumco ah iyo sabtida la bixin kara la sii bixin karaya haday bishu 29 ku dhamaatana maanta oo 28 iyo 29 ka waa la sii bixin karaya waxay ku fadli badan tahay in la bixiyo subaxda ciida ah intaan salaada ciida la tukanin walow ay ciriiri tahay oo hadda iyo duruufahan jira iyo kala xirxidnaantan cudurku keenay ay aad u adag tahay ruuxu inuu maalinkaasi subaxda hore intaan salaada la tukanin inay adkaata laga yaabay inuu masaakiintii iyo raashinkii iyo isla helo sidaas daraadeed intay ka dib dhici lahayd waqtiga hore sii bixi oo qaas ahaan duruuftan hadda ina haysatay kala xirxidnaanta waxa yani aynu qaadanaynaa insha Allah taala inaan 29 kaba sii bixino oo bari oo kale to jumcada oo kale
in waa la bilaabi karaa iyo waa la sii bixin karaa waxaa laga taxadari uun inaysan kadib dhicin salaada ciida ah salaada ciida hadday kadib dhacdo nebigu wuxuu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam markaa inuu sadaqaadka ka mid ay tahay ee ayna zakadii dagarasoonka ahayd ee jirka ka go'aysay markaa inaysan ahayn sadaqa min as-sadaqat laysat min az-zakati fi shay saka ma aha markaas saas daraadeed inaan salaada intaadan tukanin ku dadaal insha Allah taala inaad sakatul fitrigaagii bixiso oo aad gaarsiiso masaakiinta gaarsiiso dadka meelaha qurbadaha jira oo wadamadaasi aan masaakiin raashin qaadata aynan jirin ku nooli ayaga xilli hore inay lacagaha soo diraan oo dad si wakiishaan oo si taxadaraan oo si tabaabushaysan ba iyaga loo baahan yahay si ayna waqtigoodii uga dibdhicin zakatul fitrigu iyo waajibkaasi gudashadiisa ilaahay tabaaraka wa taala haynaga aqbalo ilaahayna tabaaraka wa taala soonkeena iyo sadaqaadkeena iyo cibaadaadkeena dhammaan ilaahay tabaaraka wa taala kuwa maqbuul Allah ka dhigo ajir buuxa oo dhameystiran ilaahay tabaaraka wa taala haynaga siiyo intaasi oo kooban ayaan jeclaystay inaan ka iraahdo zakatul fitriga iyo khaasatan duruuftan hadda taagan هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم